Maamulka Hirshabelle ayaa maamul kale waxa uu ka dhisay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya arrintan kuma baraarugsanahay waxaan rabnaa in aan gaarsiino oo ay dowladda federaalka ogaato in hogaamiyaha maamulkaasi iyo xubno kale ay maamul kale ka dhiseen isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaba magaca maamulkaasi iyo sidoo kale caddeyn qoraal ah oo aan idinla wadaagi doono ayaa jira oo aan helnay. Haddaba waxaa marka hore idinka codsanaynaa in aad muuqaalkeena soo gudbisaan si dowladda ay u ogaato in Hirshabelle madaxdooda gaar ahaan hogaamiyahooda iyo xubno kale ay maamul kale ka dhiseen isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Soo dhawaada muuqaalka soo gudbiya oo share gareeya lana sii wadaaga asxaabtiina. Sida aan baaris aan wadnay muddo toddobaad ah ku ogaanay in gobolka Shabeellaha Dhexe laga dhisay maamul kale oo dowladda federaalka Soomaaliya aysan ogeyn isla markaana waqti badan laga shaqeynayay. Haddaba yaa kulub leh arrintan xubnaha siyaasiyiinta ah iyo xubnaha ugu sareeya maamulka Hirshabelle ee la taaban karo yaa ka mid ah. Hogaamiyaha maamulkaasi oo Muqdisho jooga shirka wada tashigana ka qayb galay ayaa ugu horeeya sida xogtu ay sheegayso dhismaha maamulkaasi. Waxaa ku jira wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle. Waxaa ku jira xubno kale oo siyaasiyiin ah oo gobolka Shabeellaha Dhexe madax ka ah iyo sidoo kale maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuwa qayb ka ah, gaar ahaan gudoomiyaha degmada Balcad ninka la yiraahdo Qaasim Cali Nuur. Maamulkan waxaa la sheegay in dowladda laga qariyay, magaciisa la dejiyay, xubnaha la magacaabay, liiskoodii la dejiyay, lana rabo in dowladda federaalka Soomaaliya laga qariyo, laakiinse qorshe kale laga damacsan yahay oo la rabo in lagu majaaxaabiyo dowladda iyo sidoo kale maamulka Hirshabelle qayb ka mid ahna laga jaro. Haddaba warqadan aad u jeedaan ee caddeynta ah oo aan helnay haddii aan nahay bahda Kulan TV oo aan gacanta ku dhignay waxaa ku qeexan gudoomiyaha halka maamulka laga dhigay, gudoomiye ku-xigeenka halka maamulka laga dhigay, dhinaca amniga ninka qaabilsan, arrimaha bulshada ninka qaabilsan, waana hal garab oo kaliya. Arrintan waxaa la sheegay inay ka wada shireen Cali Guudlaabe, wasiirka arrimaha gudaha, gudoomiyaha degmada Balcad iyo xubno kale. Qol intii isku soo xireenna go'aankan ay soo saareen, raggan la magacaabayna lagu qanciyay in mashaariic gacanta loo gelin doono, halkaasna madax ay ka yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ay ka warqabto. Dowladda federaalkana in ay ka warqabto ayaa laga dhaadhiciyay. Haddaba maxaa iyaga u furan? Waxaa u furan in ay ka hadlaan oo ay sheegaan waxa loo sheegay oo ay warbaahinta soo istaagaan si hadhowti aysan saameyn ugu yeelan natiijada ka soo baxda. aysan saameyn ugu yeelan. Haddii ay aamusaan waxay ka dhigan tahay baahinteena kadib oo la ogaado waxay ka dhigan tahay in ay raali ka ahaayeen waxa lagu qanciyay. Haddaba dowladda federaalka ma sii daawan doontaa xogtan aan la wadaagayno oo ah in maamulka laga dhisay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan halka lagu magacaabo Jiliyaale halka lagu magacaabo in maamul laga dhisay oo magaciisa la qariyay, laakiin dokumentigan aan helnay ay ku xusan yihiin xubnaha maamulka ah. Haddii aysan la socon waa inay hadda ogaataa in dowladdii federaalka, wasaaraddii arrimaha gudaha, madaxweynihii, ra'iisul wasaarihii, gudoonkii baarlamaanka aysan ogeyn in maamulka laga dhisay. Halkaasina waa ceeb iyo fadeexad kale oo u baahan inay hadda indhaha kala furaan, arrintaasina ay la socdaan. Halkan waxaan u joognaa inaan soo gudbino xogaha, cadeymaha iyo dukumentiyada aan helno si bulshada Soomaaliyeed aan looga qarin, madaxda dowladda inay ogaadaan. Waxaan diyaar u nahay in dowladda federaalka naftirkeeda haddii ay samayso xadgudubyo iyo sidoo kale arrimo kale in aan halkan kusoo bandhigno. Ma ahan oo keliya inaan Hirshabelle iyo dhinacyo kale aan ka hadleyno waxyaabaha qaldan oo ay sameeyaan. Cid walba oo xeyndaabkeedii ka baxdo ayaan halkan kusoo gudbin doonaa. Idinkuna waxaan rajeynayaa inaad nala jaan qaadaysaan oo aad cadaaladda iyo nidaamka iyo horumarka aad jeceshihiin. Muuqaalkeena sii gudbiya, like gareeya, share gareeya oo la sii wadaaga asxaabtiina.